kusoo dhawaada daawadayaal warbixino kooban oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya laga soo bilaabo 1960kii ilaa 2010kii. 1 Julaay 1960kii xorriyaddii iyo midowgii Soomaaliyeed qaybtii laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19aad oo ay Soomaaliya gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga. waxaa madaxweynihii ugu horreeyay dalka Soomaaliya noqday Mudane Aadan Cabdulle Cismaan Daar wuxuuna ahaa ilaa xilligii Juun 1967. Aadan Cabdulle wuxuu noolaa intii u dhaxaysay 1908 ilaa 2007. Juun 1962 Nelson Mandela ayaa u mahadceliyay 4 dawladood oo ay Soomaaliya ka mid tahay isagoo ugu mahadceliyay magangelyada ay siiyeen dalka Koonfur Afrika. 1967 bishii Juun 10keedii waxaa Soomaaliya madaxweyne ka noqday Mudane Cabdirashiid Cali Sarmaake. Oktoobar 15keedii 1969kii ayaa la dilay Cabdirashiid Cali Sarmaake asagoo booqasho ku maraya Laascaanood wuxuuna noolaa isaguna intii u dhaxaysay 1919kii ilaa 1969kii. 1969kii bishii Oktoobar 21keedii waxaa Soomaaliya ka dhacay inqilaabkii loo yaqaanay inqilaabkii aan dhiigu ku daadan waxaana sidaa xukunka Soomaaliya ku qabsaday General Siyaad Barre. 1972 bishii Oktoobar 21deedii waxaa si rasmi ah loo qoray afka Soomaaliga. sidoo kale bishii Abriil 9keedii 1978 waxaa dhicisoobay afgambigii laga maaganaa in lagu rido xukuumadii Siyaad Barre waxaana la toogtay 17 ka mid ah raggii inqilaabkaasi lagu tuumay oo uu ka mid ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan isaguna ahaa hogaamiyihii inqilaabkaas. bishii Sebtembar 1978 Cabdullaahi Yuusuf ayaa aasaasay mucaaradkii ugu horreeyay dalka Soomaaliya waana jabhaddii SSF iyo dib u soo bedeshay SDF. 1984 weerar diyaarad ayaa la beegsaday Boorama waxaana lagu xasuuqay arday fara badan waxaana ka mid ahaa 37 arday iyo 4 macallin halka dhaawacu kor u dhaafiyay 39 ruux. bishii Agoosto 7keedii 1990kii jabhaddii SNM oo la aasaasay Abriil 1981 iyo jabhaddii USC lana aasaasay iyada 1989kii iyo jabhaddii SPM oo iyadana la aasaasay Maaj 1989kii ayaa midoobay sidii u tuuri lahaayeen xukuumadda Siyaad Barre. sanadkii 1991 bishii January 27keedii Siyaad Barre ayaa isaga baxay caasimadda Muqdisho halkaasna waxaa ku munaaqashooday jabhadihii